بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ عوض كبير عارف وكل عاود أول ما حكم يدور سيرك الدفاع ضد الرشيد سيركي شوفوا أمر ضد الكوسير وما ذكر عاشق كتر ضد اليمين التريون أي أمر ضد الكوسير وبحقلات الرصاص عليه إلى يورك كي أمرك يفرع gaarahaan ciidamadu qaybaha kaga sugan yihiin dalkaas sidoo kalena ay wuxuu amar ku siiyay inay weerar degdeg ah ka fuliyaan weerarada iyo ururada ciriir dhul is qabsaday gantaalada iyo holac ayaa la arkaya dhimashada dhaawac ayaa soo taraya amarka wasiirku markuu bixiyay galabta toole ciidamada raashiyaanku ay afuufeen waxay hubayeen baba Ukrainiintii way holacayaan waa gurgumanaysaa reer galbeedka waxa uu tirlaayeen daawada qodobada waxaan kala ku soo qaadan doonaa reer galbeedka ayaa isku dayay inay dalka Ukraine culays badan saaraan si ay dhaqaale iyo hub ugu taabulaan laakiin gudahooda ay ka olaaday waxa la sheegay wasiirkii ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga inuu casilay waxa kale oo ogaadeen wiil la soo dhaafay in ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska casilay sida islaayeen dhibaatada lagu geysto Ruushka ama lagu jabiyay Ukraine ayaa xaaladii gudahooda ka caloosatay waxa kale oo la soo sheegay xisbigii dalka Faransiiska ugu sareeyay ee Macron hogaaminayay inuu guuldaro kala soo kulmay kuraasi badneed oo helin jiray waxaana uu waayay kuraastii xildhibaanada dalkaas waxaana helay badankoodii xisbiga mucaaradka ah daawadayaal dagaalka farabaan ayaa dalka Ukraine ka socday muddo oo caawa oo galay habeenkii 143aad ciidamada raashiyaanku waxay gaareen guulo la taaban karo guulahaas waxaa ka mid ah dagaalka siday u bedeleen istiraatiijiyadda dagaalka ee Kiev ay uga soo baxeen magaalada Kiev ama regionka Kiev aagada u dhawaaba inay guulo la taaban kara ay gaareen raashiyaanka hadda waxay afuufayaan gantaalo marka hore ciidanka lugta ayay geliyeen laakiin hadda arrinka waa ka bedelan yahay arrinkii hore waxaa la arkayaa raashiyaanka oo hadda markii horeba kaartada hadda la soo baxay waxaa ka mid ah inuu magaalooyinka dhulka la simo magaalooyinka markuu dhulka la simo raashiyaanku oo magaalooyinka uu hoolciyo ciidamada ku jira halkaas way ka cararayaan wayna ka baxayaan dib markay uga baxaan ayuu magaaladii soo gelayaa kaartooyinkaas waa kaartooyinka raashiyaanka oo hadda la soo baxay waana dagaalka nooca raashiyaanka lagu yaqaanay markuu dagaal galo ama weerar uu galo ciidanka raashiyaanka waxaa lagu yaqaanay inuu marka hore dhulka ay la simaan magaalooyinka iyo degmooyinka markaas ay ku hayaan ciidamadooda weerarka daawadayaal dowladaha Turkiga iyo Ruushka iyo Ukraine ayaa ku shiraya dalka Mareykanka xaruntooda ugu weyn ee UN-ka waxaana laga wada hadlayaa sidii loo dhoofin lahaa raashinka badan ee yaala dalka Ukraine sida garaanka iyo maaragtay looska iyo waxyaalaha sarreenka iyo waxyaalaha kale saliidda laga sameeya sidii looga dhoofin lahaa badda madow loona gaarsiin lahaa suuqyada caalamka ee ka jirto cuntada maaragtay gabaabsiga sida wadamada maaragtay reer galbeedka qaarkood iyo Afrikaba waxaa kaloo wadanka Ukraine daawadayaal uu qani ku yahay wax soo saarka sarreenka iyo kan kale loo yaqaan fertilizer-ka daawadayaal dalkan Ukraine waa dal qani ku ah xagga beeraha iyo macdanta saliidda laftigeedu uu soo saaraa inkastoo dagaalka uu hadda adduunka dhaqaale xumo baahsan uu ku soo kordhiyay gaar ahaan wadamadii dagaalkan dabka ku shiday oo hulciyay ayay maanta taabatay noloshii wadamadaasna waxaa ka mid ah wadamada dariska la dalka Ukraine ee midowga Yurub la yiraahdo oo hadda maciishadii ay kor isku shareertay iyo shidaalkiiba daawadayaal dagaalka arrinkiisa weli fara kama qodna madaxweynaha Russia dagaalka wuxuu ku dhawaaqay 143 habeen ka hor ayay caawa laga joogaa daawadayaal dagaalkan si uu bilowday waxaa la socotaan maciishada caalamka inay kacday qiimaheeda uu kacay shidaalkii uu kacay arrinkaas waxaan kusoo qaatay wararkii ugu horeeyay markii uu dagaalku bilowday ayaan waxaan sheegay in xaalku uu sidaas ka bedelin doono waxaa kaloo hadlay oo la hadlayay shacabkiisa madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu kaloo sheegay sanadkan in dhaqaalaha wadankaas uu kor u kacay wuxuu ballan qaaday madaxweynuhu in maaragtay wadanka maalgashi badan shaqo abuur la sameyn doono wax soo saarka wadanka la kordhin doono iyo dhoofinta wadankaba wuxuu kaloo sheegay madaxweynuhu in wadankayagu uu noqon doono uu yiri wadanka tobnaad ee adduunka ama shanaad ee ugu dhaqaalaha badan wuxuu yiri waxa arrinka gaarsiin karo yiri waa ininka reer Turkiyo hayse dhiginin uu yiri meesha dalka Turkigu 23.4 bilyan ayuu sanadkan daawadayaal dhoofiyay
oo alaaba oo miciishada. Daawadayaal dalkan Turkiga waa dal qaniya ayuu maaragtay noqon doonaa sanadka 23 ilaa 25 wuxuu soo saari doonaa shidaalka ugu badan laga helay bariga dalkaas iyo koonfurtaba. Shidaalka waxaa ka mid ah gaaska inay dhoofiyaan. Gaaska adduunka ugu badan ayaa laga helay dhulkiisa oo halkaas ku ah reserve. Wuxuuna ballan qaaday in maaragtay dadka Turkida iyo dalka dadweynaha kale ee muslimiinta inay ku noolaan doonaan nolol wanaagsan. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan intuu xukunka qabtay dhaqaalaha dalkaas wuu hagaajiyey iyo aqoonta iyo maaragtay wax soo saarka dalkiiba. Daawadayaal ummad kale dal kale ma dhisto, waxaa dalkooda dhisa madaxdooda iyo shacabkooda. Daawadayaal dalka Turkiga dhaqaalihiisa kor ayuu u kacay. Madaxweyne Erdogan markuu imaanayay waxaa lagu lahaa $100 milyan World Bank. World Bank waxaa ogtihiin hadduu deen kugu yeesho weligii qoorta kaagama baxayo, qof deen kugula oo kale weeye. Daawadayaal dalka Turkiga $100 milyan markuu baxshay maanta asagaa qaniya, asagaa adduunka wax siiya, asagaa macaawino bixiya. Sidoo kale daawadayaal wararka aan nihayna waxaa ka mid ah caawa aan kusoo qaadan doono wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Russia warbixintan uu diyaariyey. Warbixintan waa warbixin aad u dheer. Ciidamada Russianka ayuu laga soo aruuriyey macluumaadkan goobihii ay fadhiyeen ciidamada Ukrainiinta la duqeynayo, magaalooyinkii ay fadhiyeen, qeybaha ay ka fadhiyaan. Waxaa ogtihiin khasaaraha shacabku inuu aad u yaryahay. Hase yaraatee saxaafadaha reer galbeedku daawadayaal had iyo jeerba waxay buunbuuniyaan dhimashada maaragtay inay jirto shacabka oo aad u fara badan oo khasaarahaasna waxaa geystay had iyo jeer ku eedeeyaan ciidamada Russianka diyaaradahooda iyo gantaalo badda laga soo rido ama kuwa madaafiicda ciidanka lugtaba ha ahaatee. Laakiinse hadda ciidanka dowladda Russia iyo qaybtooda difaaca, wasiirka difaaca ee dowladda Russia ahna afhayeenka ciidamadaas ayaa soo bandhigay muuqaalkan maantay. Wuxuuna sheegay muuqaalkan inay ka qayb qaateen diyaaradaha qumaati u kaca iyo madaafiicda dhulka laga rido, iyo gantaalada laga soo tuuro badda, kuwa helikobtarada laga rido. Daawadayaal muuqaalkan waxaa dhammaantiisba lagu soo bandhigay goobihii loo geystay duqeymada ay fadhiyeen ciidamada Ukrainiintu. Laakiinse asagoo hadalka wuxuu yidhi cadowga iyo caloosho-shaqaystayaasha ay reer galbeedka soo kireysteen. Waxaad ogtihiin daawadayaal dagaalkan inay ku qabteen ciidamada dowladda Russia maxaabiis aad u fara badan. Maxaabiistaas waxaa ka mid ahaa kuwa ka yimid dalka Mareykanka, kuwa ka yimid dalka Ingiriiska, wadamada maaragtay midowga Yurub qaarkood. Laakiin ilaa hadda lama soo sheegin maxaabiis caloosho-shaqaystayaal oo Afrika ama Carabaha ka yimid ama dowladaha muslimiinta. Waxaana ogtihiin dhammaantiinba dowladaha muslimiinta inay taageersan yihiin ciidamada Russianka badankoodu iyo dowladaha Afrikaankaba. Daawadayaal dagaalkan wuxuu adduunka kusoo kordhiyey wax mucjiso ah oo aad loo yaabo. Waxaa la islahaa marka hore dagaalkan dowladda Russia afka ciidda loo diri doonaa sida Afghanistan, way carari doontaa, dhaqaalahooda maaragtay burburin doonaa. Afghanistan cunaqabateyn laguma soo ridin saan oo kale loo hubinayay Ukrainiinta. Laakiin ninkan dalka xukuma Ruushka Putin wuxuu la soo baxay siyaasad cusub. Wuxuu yiri wax walba waxaa lagu gadanayaa lacagta dalkaas la yiraahdo rubiyo. Lacagta Russianka rubiga ayaa qiimo yeelatay. Markay qiimaha yeelatayna waxaa weeye dhaqaalihii dalkaas ayaa kor u kacay. Weligeedna abidna lama arag baa la yiri dhaqaalaha Ruushku xilligan meeshuu gaaray. Daawadayaal sidoo kale waxaad ogtihiin dhaqaalihii dowladaha reer galbeedka gaar ahaan midowga Yurub lacagtoodii ilaa iyo xilligii waxaa la yiri 2002 meesha hoos u dhaca ku yimid baa la yiri weligeed abid kuma imaan lacagtaas. Daawadayaal dowladihii midowga Yurub waxaa la soo sheegayaa inay dhexdeedu ka aloosan tahay. Ra'iisul wasaarihii dalkaas Talyaaniga ninka la yiraahdo magaciisa Mario inuu is casilay. Ra'iisul wasaare Mario shacabka dalka Talyaaniga waxay ku eedeeyeen inuu 45% baa la yiri shacabku ama 50 waxay ka soo horjeesteen inuu dhaqaalaha halkaas uu ku daabulayo iyo hubba. Arrinkaasna arrin fiican maaha. Shacabka Talyaanigu waa kaceen, guryaha ayay ka soo baxeen. Booliiska ayaa la arkayaa ayagoo ku mudaharaadaya arrinka ra'iisul wasaare Mario Draghi hadda wuu is casilay
xisbigii kale oo mucaaradka ayaa la filaya hadda in dowlad kale ay soo dhisaan. Daawadayaal, ra-iisul wasaarihii Ingiriiskuna waxaa ku timid fadeexada xagga musuqmaasuqa iyo siro badan uu bixiyey. Maaragtay waxyaalo fara badan ayaa lagu soo eedeeyey. Waxaa kaloo la sheegaya ra-iisul wasaaraha Jonas Johnson nin maaragtay aad khatar uga ah inuu ahaa amniga dalka Ruushka. Raashiyaanku macluumaad ay ka diyaariyeen ayaan soo duun doonaa dhowaan. Daawadayaal, waxaan kaloo nii haynaa ninka la yiraahdo madaxweynihii dalka Faransiiska Macron, xisbigiisii inuu guuldarro kala kulmay kuraastii ugu badneed ee dalkaas uu heli jiray inuu waayey. Xisbigii kale oo mucaaradka ahaa in ay heleen kuraastii ugu badneed dalka Faransiiska. Daawadayaal, dowladihii reer galbeedka waxaa soo wajahaya dhaqaale xumo, shacabkooda ayaa ku kacay sababtoo dhaqaalihii dalkaas dalalka la isku yiraahdo Midowga Yurub waxay dhaqaalihii ku daabulayaan iyo hubaba dalka Ukraine sidii Ruushka halka loogu joogiyo. Arrintaasna waxay kala kulmeen dharbaaxo aad u weyn markii ay soo wajahday dhaqaale xumo. Dabadeedna waxay sababtay in madaxda dalalka Midowga Yurub ay is casilaan. Daawadayaal, warka ku xiga meel walba joogtaan waa mahadsantihiin. Waxaan iisoo diyaarin doonaa warbixin dheer oo ku saabsan safarkii madaxweynaha dowladda Mareykanka uu ku kala bixiyey Bariga Dhexe. Safarkaas oo kasoo bilowday dalka Israa'iil kuna dhammaaday dalka Sacuudiga oo ilaa ay hadda ku sugan yahay. Daawadayaal, warbixintaas oo dhammaystiranna waxaa ku maqli doontaan warka xiga. Daawadayaal, meel walba joogtaanba waxaan iga codsanaynaa inaad barnaamijkayga la socotaan had iyo jeerba aana share gareysaan.